Halkan waa barta wararka ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu door karoon. Ciidamada booliska Dhuusamareeb oo toogtanin hubeysana. Dowladda Soomaaliya oo damacsan tallaabo xasaasi ah oo ka dhan dalka Kenya. Qaramada Midoobay warbixin culus ka soo saartay canshuurta ay Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka. Akhbaraadka ugu door karoon xilligan waxaa ka mid ah nin doorasho madaxtinimo ku galaya ballanqaad oo xaaskiisa ku saabsan. Mar kale daawadayaal kulanti wanaagsan. Ciidamada booliska Dhuusamareeb ayaa toogtanin hubeysana. Wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ku sugan saldhigga degmada Dhuusamareeb ay xalay toogtanin hubeysana oo isku dayay in uu galo saldhigga booliska degmadaasi. Toogashada ninka hubeysan ayaa timid kadib markii uu isku dayay in uu galo saldhigga hase yeeshee ay ku amreen in uu istaago ciidamada ilaalada saldhigga ka hayay balse uu rasaas ku furay taas oo keentay in ay toogtaan sida ay xaqiijiyeen ilwareedyo. Toogashada ninka hubeysana ayaa ka hor wararka waxa ay sheegayaan in rasaas daqiiqada socotay ay dhex martay isaga iyo ciidamada booliska saldhigga ku sugnaa iyadoo ugu dambeyntii ay toogteen. Ilaa iyo hadda lama oga waxa uu ahaa shakhsiga hubeysana ee isku dayay in uu galo saldhigga Dhuusamareeb ee la toogtay. Waxaana saraakiil ka tirsan booliska ay sheegeen in rasaastii dhacday aysan khasaaro dhinacooda ka soo gaarin. Dowladda Soomaaliya ayaa damacsan tallaabo xasaasi ah oo ka dhan ah dalka Kenya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka jawaabto go'aanka ay Kenya ku jibisay xayiraadii duulimaadka ee saarneed magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Barta wararka ayaa ogaatay in xalay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ay kulamo gaar ah ka yeesheen jawaabta uu dalkan ka bixin doono xadgudubka lagu sameeyay taas oo wax u dhimaysa madaxbannaanida dalka. Warar aan ka helnay xubno lagu kalsoon yahay oo ku sugan Villa Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka fikirayso laba qodob midkood oo kala ah in dalka laga eriyo safiirka Kenya ama in la joojiyo qaadka soo gala dalka si looga jawaabo xadgudubyada dalka Kenya. Xukuumadda waxa ay dhawaan erin doontaa safiirka Kenya ama ay joojin doontaa qaadka dalka soo gala ee ka yimaada Kenya si looga jawaabo xadgudubyadii dhacay ee ka dhanka ah duulimaadka ayuu yiri qof ka tirsan Villa Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa warbixin culus ka soo saartay canshuurta ay Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka. Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyay canshuurta qasabka ah ee kooxda Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka dhulka ay maamulaan. Warbixin cusub oo ka soo baxday Golaha Ammaanka ayaa lagu sheegay canshuurta sharci darrada ah inay sababtay barakac xoogan iyo in ay hoos u dhigantay dhiirigelintii wax soo saarka beeraha. Boqolaal qoys oo ku tirsanaa xoolaha iyo beeraleyda ayaa guryahooda ugu cararay cabsi soo wajahday kadib markii shabaabku weydiisteen inay qasab ku bixiyaan lacag ay ku sheegeen canshuur sida warbixinta lagu yiri. Qoysaskan oo horey u saameeyeen abaarihii ka dhashay roob yarida ayaa ku qasbanaaday in ay u barakacaan dhulka magaalooyinka halkaasi oo hay'adaha samafalka ay ku caawinayaan. Sidoo kale warbixinta Qaramada Midoobay ayaa walaac xoogan loogu muujiyay askareynta carruurta Soomaaliyeed iyadoo la sheegay in ay ka socoto gobolka Bari oo ka tirsan Puntland koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Markan akhbaraadka waxaa ka mid ah ugu door karoon xilligan nin doorasho madaxtinimo ku galaya ballan qaran oo xaaskiisa ku saabsan. Aqoonyahanka howlgabka noqday Kazim Zaid ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha Tunisia sida lagu sheegay codbixin la qaaday. Codbixinta ayaa muujisay in ninkani oo bara jaamacadeed dhanka sharciga ahaa da'diisuna ay tahay 61 sano uu helay 76% codadkii la dhiibtay. Laakiin weli natiijada rasmiga ah laguma dhawaaqin. Waxa uu la tartamay wariyahan Nabil la yiraahdo oo 56 sano jir ah kaas oo isagoo xabsiga ku jira ololaha madaxtinimada kadib markii loo xiray wax isdabamarin lacageed. Wuu dafiray eedeymaha saraakiisha ayaana ka digay inuu racfaan qaato iyagoo sheegay inaan loo ogoleen olole cadaalad ah. Master Kaiz oo ay maxkamadda sii deysay 4 maalmood ka hor ayaa ku soo baxay musharax labaad wareegga koowaad ee codbixinta isagoo helay 15.6% codadkii la dhiibtay halka Master Zaid uu helay 18.4%. Guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen barta wararka waa nageynta.